haddii ay jirto in qof aadam ah baahi loo qabo naftaydu adiga oo kaliya ayay ku tabaysaa oo baahi ay kuu qabtaa kuguna qanacsan tahay iyadoo aanan ka fakareenin culaysyada imaan kara mustaqbalka dhow waayo naftayda adiga oo kaliya ayay kuu dhaga nugushahay dhagahaygu waxay maqlaan hadalkaaga macaanka badan oo kaliya indhahayguna aragtidaada ayaa dawo u ah oo dhaayahaaga quruxdooda badan ayaa dhabtii dawo aniga iga dhigan macaanee waa igu adag tahay in aan saacado badan ku sugo waayo taas waxaa sabab u ah qalbigayga oo aan u dulqaadan karin kuna ilaawi karin kuna sugi karin wakhti badan daqiiqadaha mar walba waan tiriyaa waxaase iga sii adag in aan ku waayo sababtoo ah xusuustayda iyo maskaxdayda ayaad meel adag ka degan tahay. soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geystay shabakadda caanka ee caashaqa.com waa shabakadaad ka helaysid wararkii ugu dambeeyay aflaamta kala duwan gaar ahaan hindiga turkiga iyo weliba qaybaha kale ee dunida aflaamteedu ay ka kooban tahay. shalaygu waa qayb ka mid ah guuldarrada laakiin tartanka soo jiidashada waad u qalantaa inuu qofku guuldarrooyin badan kuu wajaho sababtoo ah waxaan u noolahay dartaa haddii aniga xaggayga ay sidaas ay tahay ogow meel ka mid ah dunida waxaa ku nool qof riyadiisu ay tahay dhool caddayntaada waan ku jeclahay waana ku jeclaan doonaa in badan inta aan ku sii jeclahay in ka badan waxaadna haysataa wax walba oo aan u baahanahay waayo noloshayda adiga oo keliya ayaa iftiin u ah waxaad tahay rajadayda iyo dhammaan riyadayda wax dhib ah ma lahan haddii mustaqbalka dhow dhaawac iyo dhib u yimaado waayo wadajirkeenna iyo garab istaagaaga ayaan wax walba ku ilaawayaa jacaylku waa dulqaad iyo naxariis waxaan jeclahay in aan mar walba runta ku soo bandhigo iyadoon qofna niyadda laga jabinayn mararka qaarna waxaad ii tahay qofka iigu dhow dadka oo qalbiyada ayaan isdhaafsannaa boqolaal qalbi aad ayay u tira yar yihiin in ay qaadaan dhammaan jacaylka aan kuu qabo maba ogeyn abidkay macaanka nolosha jacaylka iyo farxadduba in ay sidan tahay ilaa aan adiga ku bartay oo aad noloshayda ku soo biirtay waxaad tahay iftiinka noloshayda waxaad tahay qofka keliya ee noloshayda furay kumana ilaawi doono weligay waana ku xusuusnaan doonaa macaaney.